ku soo dhawow kubadda cagta tiyub iyo warbixin ku saabsan qaar ka mid ah ciyaartoyda kubadda cagta iyo raashinka isticmaalaan. warbixintan waxay si gaar ah u taabanaysaa shan ka mid ah qaar ka mid ah xidigaha ugu caansan kubadda cagta ee ku jiro Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi iyo raashinka ay sida gaarka ah u isticmaalaan. sida aan la socono inta badan looma ogolo raashinka dufunta leh qaar ka mid ah ciyaartoyda kubadda cagta. waxaa la diidayaa inuu sii kordho jirkooda, sidoo kale waxa ay badsadaan khudaarta. balse warbixintan aan fiirino. waxaa ugu horeeya Dani Alves, ciyaaryahankii hore ee kooxda Barcelona ayaa jecel cunada ama inuu cuno baradho duwan, caano lagu sameeyay, sidoo kalena khudaaraysan ama khudaar leh sida ku muuqata. xidiga labaad waa goolahayaha Chelsea xilligan Kiba Arrizabalaga. goolahayahan waxaa la sheegay inuu jecel yahay raashinka guryaha lagu sameeyo sida ku muuqata. wuxuu aad u jecel yahay cunista burduwan, sokor la mariyay amaba waxyaabaha qaar ee guryaha lagu sameeyo. Lorenzane wuxuu jecel yahay cunista basta macaronida oo hilib cadaan ah ama digaag ama malaay lagu dhex sameeyay aan suugaysnayn. ciyaaryahankan Man City ka tirsan ayaa aad u jecel cunista baastada, wuxuuna inta badan u isticmaalaa marka uu joogo gurigiisa. sidoo kale wuxuu jecel yahay inuu Coca-Cola cabitaanka la yiraahdo maalin walba u isticmaalo. wax dhibaato ah ima keento ayuu yiri, waana waxyaabaha aan jeclahay inaan isticmaalo. xidiga afraad waa Cristiano Ronaldo. Cristiano sida sawirka kaaga muuqata wuxuu marka koowaad uu iska ilaaliyaa waxyaabaha dufinta leh. saxan ay ka muuqdaan hilib cadaan ah oo malaay u eg, yaanyada la cuno iyadoo ceeriinka ah, ukun jarjaran iyo sidoo kale baradhada ayuu aad u jecel yahay. qaybta dambe waa bur u samaysan sida chipsiga, liin dhanaan dul saaran ama waa bajiyo maya, waa bur u samaysan sida chipsiga ayuu jecel yahay Cristiano Ronaldo. yacni muhiimadiisu waxay tahay inuu cuno raashin loo yaqaano bacalhau paras. Lionel Messi iyo Andres Iniesta waxay cunaan raashinka idin muuqda. La Bella ayaa loo yaqaanaa raashinkan af Spanish marka laga hadlayo. malaha wax indha leh oo sidoo kale baalal leh ayaa idin kaga muuqda raashinka dushiisa wax saaran. bariiskan waa bariis Spanish ah, balse waxyaabaha qaar ee dul saaran waa cayayaanka qaar ee biibiiwa bisbaas ay inta badan ku dul cunaan. iyagu way jecel yihiin inay isticmaalaan ciyaartoydan cunista raashinka. way kala duwan yihiin sida aad aragteen qaar ka mid ah ciyaartoyda iyo raashinka ay jecel yihiin inay cunaan. waad ku mahadsantahay daawashada warbixintan. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka kubadda cagta tiyub, subscribe leh, like saar muuqaalkan, share garee oo la wadaag asxaabtaada. mahadsanid.